xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta maamulka warbaahinta codka ciidamada qalabka sida iyo taliska ciidanka xoogga dalka ku wareejiyay qalab isgaarsiin iyo 2 transmitter FM oo ah qalabka warbaahinta taasoo loogu talagalay in lagu balaariyo idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya lana gaarsiiyo guud ahaan gobolada dalka. waxaana munaasabad kooban oo loogu talagalay wareejinta qalabkan goobjoog ka ahaa madaxa hoggaanka wareysgaarsiinta ciidanka xoogga dalka, ku-xigeenka madaxa hoggaanka ciidanka, agaasimaha guud ee warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan xafiiska UNSOS. Maxamed Muuse Maxamed, agaasimaha warbaahinta codka ciidamada qalabka sida oo gudoomiyay qalabkan, ayaa u mahadceliyay xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya, waxaana uu xusay in taliska ciidanka xoogga dalka aysan la'aantood suurtageli lahayn in la helo qalabkan muhiimka u ah shaqada qaranka. maanta halkan waxaan u joognaa inaan la wareegno qalab transmitter 2 xabo ah oo maaragtay loogu deeqay idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. qalabkaasi oo howshiisa ay muddo soo socotay isla markaana taliska ciidanka xoogga dalka uu ka shaqeynayay. waxaan noogu deeqay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOS loo yaqaano. runtii farxad ay noo tahay, waxayna tahay dhiirigelin maadaama shaqo muhiim ah aan hayno. qalabkaasna oo ah qalab aan u baahannahay oo wax badan naga saaciidi doono, isla markaana hadda meelaha nagala dhageysto meelo ka sii fog maaragtay nagala dhageysan doono. runtii farxad aad u weyn noo tahay, waxayna keenaysaa inaan shaqada aan sii laba jibaarno. waxaan ugu mahadcelinaynaa taliye Dhuxulow iyo dhammaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odwaa iyo guud ahaan madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo xafiiska qaramada midoobay oo arrintan iska kaashaday nagana saaciiday inaan qalabkan oo muddo baahidiisa ay soo taagneed aan helno. waxaan rajeynayaa in intaan in ka sii badan aan helno oo guud ahaan gobolada dalka oo dhan aan gaarno iyo adeegyada kale waxyaabaha kale naga dhiman inaan heli doono. annaga waxaan diyaar u nahay tiimka SNA Radio inaan habeenii maalin aan qarankeena u shaqeyno oo aan la dagaalano cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab, shacabkana aan u sheegno xumaantooda iyo guulaha iyo wanaagga ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. mar kale waxaan u mahadcelinaynaa madaxdeena ee arrintaas naga gacan siisay. Cabdi Fataax Aqyaar, SNA Radio, Muqdisho.